joogna laascaanood kan noo socon saaka waxa socda dagaalkii oo maanta ka dhacay dagaalkaasoo ay ka muuqato saaka sida ama u socdo ama uu ku bilowday wax badan laga gaabsan karay cawaaqib xanuunka badan oo dhacay ee jirtay taasna eedeeda iyo farxadeeda loo tirnay mid Soomaaliya waxaan leenahay madaxweyne Muuse Biixi halkii laascaanood kulli xabad buu noqday isurubi waxaan leenahay halka laascaanood ummadda wixii hadayna kala badbaado waxa lagu heli karaa ciidamada laascaanood laga baxo tan saakta Allah yasaawi sidoo ognahay dagaal weyn arki jiray dagaal shacabna weyn arki jiray mid dowladeedna wala arki jiray saaka laascaanood waxa ku dagaalamaya iyo xabadaha qaabkay u dhacayaan iyo burburka iyo barakaca iyo meedka iyo dhaawaca saaka xukuumadda Soomaaliland ee sidoo kale jirtay saaka harta xarbada halkaas maraysa dadweynaha way ogeysiinayaan ummadda wax u galbeed taasna waxa cadaan oo laga arkaya saaka qofkii neefka xoolaha ama tabaarkii iyo gurigii oo wada burbursan wada dhintay isku meel yaala taasina halkeedu meesha labaad xukuumaddu waxay ku soo celinaysaa oo wasaaradda warfaafinta shalay ee qoyska in la saacad ay ka xiska dagaalamayso beesha caalamka adduunka ayna waxaan ogeysiinaa laascaanood wax ku dagaalamayo inaysan ahayn al-shabaab iyo argagixis aysan ahayn ee ay yihiin Soomaaliland ciidamadeedii iyo dadkii deegaanka taasi waa xaqiiq cid iga xogaalsanay saaka ma jirto waayo xogaal baan ahay wax meesha ku jira xogaal baan ahay saaka dagaalka laascaanood ka socda cid ka dagaalamay ku jirto waxa weeye warar baantiga ku qashinay iyo beelaha gabooyi ma joogto argagixiso ma joogto cid kale oo saaka lagu eedeynayo waxaan leenahay waxaan inta raacda Soomaaliland ragga mas'uuliyiinta ku jira anoo kamid baan ahaa laakiin saaka kamid mihi ragga ku jira waxaan leenahay dhulbaanta wuxuu ka horeystay fardo wali laba nin ulba duulay bali ragna wuxuu ka horeystay leeydi fardo ragna niman arag badan baa inuu soo fuleen bali orgi dhulbaan saaka fardo u koraysan ragga orgida fulayeen aan noqonin taasna saasan leeyahay taxigta waxaan leeyahay waan ku celinayaa halka laascaanood muusow waxay ku jirtaa laascaanood ciidamada laga saaro laba arrimood baan saaka u soo qaadanaya laba mahmahood min cali khaliif baa bixiyay oo waxay arrintii ahayd waxaad ogaan doontaa maalin shacabka SSC intuu kaco xaloo waayo taas horta maanta taagantahay oo xaqiiq talabaad kale ayana waxa weeye maxamed xaashim wuxuu yiri Muuse taladaadii xamayd baa ku urtay maanta ku urtay inaha irsan saakana taasna waa taagantahay waxaan leeyahay ciidamada Soomaaliland Muuse inaad kala baxdaan baxalkii danta ku jirta joogna laascaanood kan noo socon saaka waxa socda dagaalkii oo maanta ka dhacay dagaalkaasoo ay ka muuqato saaka sida ama u socdo ama uu ku bilowday wax badan laga gaabsan karay cawaaqib xanuunka badan oo dhacay ee jirtay taasna eedeeda iyo farxadeeda loo tirnay mid Soomaaliya waxaan leenahay madaxweyne Muuse Biixi halkii laascaanood kulli xabad buu noqday isurubi waxaan leenahay halka laascaanood ummadda wixii hadayna kala badbaado waxa lagu heli karaa ciidamada laascaanood laga baxo tan saakta Allah yasaawi sidoo ognahay dagaal weyn arki jiray dagaal shacabna weyn arki jiray mid dowladeedna wala arki jiray saaka laascaanood waxa ku dagaalamaya iyo xabadaha qaabkay u dhacayaan iyo burburka iyo barakaca iyo meedka iyo dhaawaca saaka xukuumadda Soomaaliland ee sidoo kale jirtay saaka harta xarbada halkaas maraysa dadweynaha way ogeysiinayaan ummadda wax u galbeed taasna waxa cadaan oo laga arkaya saaka qofkii neefka xoolaha ama tabaarkii iyo gurigii oo wada burbursan wada dhintay isku meel yaala taasina halkeedu meesha labaad xukuumaddu waxay ku soo celinaysaa oo wasaaradda warfaafinta shalay ee qoyska in la saacad ay ka xiska dagaalamayso beesha caalamka adduunka ayna waxaan ogeysiinaa laascaanood wax ku dagaalamayo
inaysan ahayn al-shabaab iyo argagixis aysan ahayn ee ay yihiin Somaliland ciidamadeedii iyo dadka deegaanka. taasi waa xaqiiq cid iiga xogogaalsanay saaka ma jirto waayo xogogaal baan u ahay waxa meesha ka jira xogogaal baan ahay saaka dagaalka waa saxna ku socda cidda ka dagaalameysa ku jirta waxa weeye warar baantii ku qashini iyo beelaha gabooyi ma joogto argagixiso ma joogto cid kale oo saaka lagu eedeynayo waxaan leenahay waxaa intaan raacdaa Somaliland ragga mas'uuliyiinta ku jira anoo ka mid baan ahaa laakiin saaka ka mid mihi ragga ku jira waxaan leenahay dhulbaanta wuxuu ka horeystay fardo wali laba nin ulba duulay baa leeyahay ragna wuxuu ka horeystay yaa leeyahay fardo ragna niman ari badan baa inay soo fuleen baa leeyahay orgi dhulbaan saaka fardo u ka horeysay ragga orgida fulayeen noqonine taasna saasan idin leeyahay taxigta waxaan leeyahay waan ku celinayaa halka laasacanood muusow waxay ku jirtaa laasacanood ciidamada laga saaro laba arrimood baan saaka u soo qaadanaya laba mahmaahood nin cali khaliif baa bixiyay oo waxay arrintii ahayd waxaad ogaan doontaa maalin shacabka SSC intuu kaco waxa loo waayo taasi horta maanta taagantahay waa xaqiiq talabaada kale yana waxa weeye maxamed xaashi wuxuu yiri muusow taladaadii xumayd baa kugu urtay maantay ku urtay cidna ha irsan saakana taasna waa taagantahay waxaan leeyahay ciidamada Somaliland muuse inaad kala baxdo baxalkiyo danta ku jirta aan joogno laasacanood kan noo socon saaka waxa socda dagaalkii oo maalinta qaad galay dagaalkaasoo ay ka muuqato saaka sida ama u socdo ama uu ku bilowday wax badan laga daaqsan karay cawaaqib xanuunka badan oo dhacay ee jirto taasna eedeeda iyo farxadeeda loo tirmay mid Somaliland waxaan leenahay madaxweyne Musabbixi halkii laasacanood oo kale xabad buu noqday isugu waxaan leenahay halka laasacanood ummadda wixii hadhayni kala badbaado waxa lagu heli karaa ciidamada laasacanood lagala baxo tan saakta Allah ya saawi sideen ognahay dagaal weyn arki jiray dagaal shacabna weyn arki jiray midowdeedna waa la arki jiray saaka laasacanood waxa ku dagaalamaya iyo xabadaha qaabkay u dhacayaan iyo burburka iyo barakaca iyo meedka iyo dhaawaca saaka xukuumadda Somaliland ee sidoo kale jirtay saaka harta xarbada halkaas maraysa adduunyada waa ogeysiinayna ummadna waxa galbeed taasna waxa cadaan oo laga arkayo saaka qofkii meedka xoolaha ama tabaarkii iyo gurigii oo wada burbursan wada dhintay isku meel yaala taasina halkeedu leeyahay labaad xukuumaddu waxay ku soo celinaysaa oo wasaaradda warfaafinta shalay ee qoyska in laasacanood argagixis ka dagaalamayso taa beesha caalamka iyo adduunka waxaan ogeysiinaa laasacanood wax ku dagaalamayo inaysan ahayn al-shabaab iyo argagixis aysan ahayn ee ay yihiin Somaliland ciidamadeedii iyo dadka deegaanka taasi waa xaqiiq cid iiga xogogaalsanay saaka ma jirto waayo xogogaal baan u ahay waxa meesha ka jira xogogaal baan ahay saaka dagaalka waa saxna ku socda cidda ka dagaalameysa ku jirta waxa weeye warar baantii ku qashini iyo beelaha gabooyi ma joogto argagixiso ma joogto cid kale oo saaka lagu eedeynayo waxaan leenahay waxaa intaan raacdaa Somaliland ragga mas'uuliyiinta ku jira anoo ka mid baan ahaa laakiin saaka ka mid mihi ragga ku jira waxaan leenahay dhulbaanta wuxuu ka horeystay fardo wali laba nin ulba duulay baa leeyahay ragna wuxuu ka horeystay yaa leeyahay fardo ragna niman ari badan baa inay soo fuleen baa leeyahay orgi dhulbaan saaka fardo u ka horeysay ragga orgida fulayeen noqonine taasna saasan idin leeyahay taxigta waxaan leeyahay waan ku celinayaa halka laasacanood muusow waxay ku jirtaa laasacanood ciidamada laga saaro laba arrimood baan saaka u soo qaadanaya laba mahmaahood nin cali khaliif baa bixiyay oo waxay arrintii ahayd waxaad ogaan doontaa maalin shacabka SSC intuu kaco waxa loo waayo taasi horta maanta taagantahay waa xaqiiq talabaada kale yana waxa weeye maxamed xaashi wuxuu yiri
موسى وطلعت حميد باكو أرتي ما أنت كو أرتي إنها إرسن ساكنة تاسنا وتاجنت وحن لا إذا ما سليمان لان موسى إن الكلب حلم بحلك يدنت جدا